taliyihii hore ciidamada qaranka Somalilnad Genaral Cismaan Dacas oo ah taliyihii dhisay ciidamada qaranka Somalilnad ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwad u dhaxaysa isaga iyo gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu ku haysto beer ku taala deegaanka Geedeeble ee galbeedka gobolka Maroodijeex oo uu isagu lahaa isla markaasina uu Muuse ka qaaday waqtigii colaadda sokeeye. dacwadan oo soo socotay tan iyo sanadii 1994 oo uu tilmaamay inay tahay waqtiga gudoomiye Muuse Biixi uu xooga kaga qaaday beertaas maadaama aan isagu u dhalan deegaanka Geedeeble iyo galbeedka Hargeysa isla markaasina uu ka soo jeedo gobolka Saraar iyo bariga Burco. taliyihii hore ciidamada qaranka mudane Cismaan Dacas waxa uu sheegay in dacwadda ku saabsan beertan uu lahaa ay socotay 20 sanadood ee ugu dambeeyay welina aan wax hal ah laga gaadhin. ugu horeyn waa kan taliyihii hore ciidanka qaranka Genaral Cismaan Dacas oo ka hadlaya mashruucii dawladda Soomaaliya u siisay beertan qaabkii uu uga shaqayn jiray soona bandhigaya sharciga dawladda Soomaaliya ku siisay isla markaasina ka waramaya waqtigii iyo sidii Muuse Biixi uu uga qaaday beerta. beertan waxaan ku yeeshay markii aanu dawladdii Maxamed Siyaad aanu iskhilaafnay maxaan ku raahdaa dadkan magaca sheegta ay iska hor yimaadeen anigu markaa shirkii la dhan ka soo noqday oo la yiri shirkii la dhan dalkii ku noqo shirkii la dhan meeshii SNMta laga dhawaaqay ayaan dalka ku soo noqday. dabeedna markaas waxaa dhacday in aan markaas cover isu sameeyo ilaa shaqadii markaa ciidamada markaa dibadda ka layga dhigay. dabeedna maxaan ku raahdaa beer baan ku jeestay. beertaasi waxaan ku raahdaa mashruuc uu ahaa. mashruucaas maxaan ku raahdaa waxaa la yiraahdaa ama la oran jiray hohoba ama jojoba iyo maxaan ku raahdaa iyo dhir kale oo sida ay cibtu ka mid tahay cibtii Soomaaliya ka mid tahay si aan maxaan ku dalka ugu beero ugu fidiyo maxaan ku raahdaa aan faa'iido ka helo ayaan markaa u jeestay. dabeedna aniga oo hawshii saa ugu dhex jira oo ay meel fiican ii marayso ayaa wasaaradda beeruhu ii yeedhay. waxay tiri maxaan ku raahdaa mashruuci aad waday jaamacadda carabta ayaa maxaan ku raahdaa iyo shubcada qurumaha ka dhaxaysa ayaa interesting ku ah. maxaan ku raahdaa wasaaradii beeraha nahay ee Soomaaliya maxaan ku raahdaa aynu wada mashruuca wada yeelano oo adina maxaan ku nus yeesha hadda Cismaan tahay nus yeesha annakuna aanu yeelano. dabeedna heshiis baan halka ku galay. heshiiskaasi wuxuu markaa dhigayay in anigu aan noqdo coordinator-ka mashruucaas dawladdii Soomaaliya ay yeelato chairman-ka ay yeelato. dabeed halkaas aan hawshii ka sii waday. dabeedna beertaasi markii hore asalkii hore waxaa lahaan jiray Ingiriis baa lahaan jiray. Ingiriis markaa wuxuu ku dhaqi jiray looda iyo maxaan ku raahdaa loodu ku dhaqi jiray ka bacdi. dabeedna maxaan ku raahdaa loodii iyo wixii waa baabeen. markay baabeen dabeedna anigu markaa mashruucii meesha iyo meel Burca iyo maxaan ku raahdaa meel bariga Hargeysa ah iyo Geedeeble ayaan mashruucii markaa aan ka waday ka bilaabay. dabeedna ceel baan ka qoday wixii document kale ay ku wada qoran yihiin wixii aan maxaan ku halka maalgelin ku sameeyay iyo maxaan ku hada beeraha waxaan ka abuuray. beertii waxay noqotay beer iyadoo isbixinaysa. dabeedna culture wixii horticulture ama maxaan ku raahdaa khudrada iyo dhirta waaweyn maxaan ku raahdaa faa'iidada leh ayaan isku dhex waday. qandaraas waxaan naga haystay khudradda nin Axmed la oran jiray oo Geedeeble maxaan ku raahdaa gargaar hortiisa booshari ku lahaa oo maxaan ku raahdaa egsku suran ahaa reer Samatar baa qandaraas ku haystay. maxaan ku raahdaa 15 orami waa ka shaqeynaysay ilaa 5 Soomaalina waa ka shaqeynayeen. marka Hargeysa oo dhib waa tiqiin. على كل حال beerta markaas
saasaan aan ku yeelanay haddii su-aashaadi aan ku soo noqdo waa gartay waxa weeye markii horta beertii oo dee maxaanku cirkaa maraysa waa tii dagaalku ka dhacay Hargeysa 88kii dabeedna Hargeysa waa tii dhowr meelood oo kala qaxday wixii waqooyi u qaxay beertaasay degeen halkaasay 3 bilood ay khudradda iyo maxaanku waxba ka cunayeen halkaas horta markaa beertii halkaas wax badan baa soo gaadhay anigana markaas ay ugu dambeysoo dee anigu markaa waxaan galay SNMT baan galay markaa beertii sida markay ahayd 91kii dalka la soo galay anigu aan ahaa markaas taliyaha ku-xigeenka ciidankii barca soo galay aan ahaa Xasan Kayd oo number 1 ka noo ahaa aan ku-xigeenkiisa ahaa dabeedna halkaas dawladii Somalilnad waa tii halka lagu dhisay dabeedna sharci waa tii la soo dejiyay oo la yiri wixii 91 ka horeeyay sharcigii wixii sharci jiray dawladii hore samaysay Maxamed Siyaad sideedii buu ahaanaya waxana laga bedeli karo dhul wixii ku saabsan iyo wixii sharci ku saabsan ala kulli xaal markii maxamed Ibrahim cigaal loo doortay madaxweynaha loo doortay boorab laga soo doortay ayaa maxaanku hada ninka la yiraahdo Muuse Biixi laga dhigay wasiirka daaqiliga dabeedna halkaas ayaanu markaas ka soo galay Muuse Biixi beertii markaa wuxuu yiri beertii annaka qaadanay waxaanu ku qaadanay qaab qabiil baanu ku haysanaa haddaan Muuse Biixinahay iyo maxaanku hada seedigiina way yimi wuxuu yiri haddaan beerta ka hadhin waa ku dilaynaa buu yiri Genaral Cismaan Dacas taliyihii hore ciidamada qaranku waxa uu baaq u diray odayaasha iyo waxgaradka beesha uu ka soo jeedo Muuse Biixi iyo waliba beeshiisa waxa uu ka codsaday in sidii dhaqanku ahaa ay uga soo celiyaan beertiisana uu sheegay in muddo 20 sano ah qaab beelaysan loogaga haystay oo fariin u diray beesha uu isagu ka soo jeedo ee bariga buro inay tahay beesha Muuse Biixi codka ka doonayo waxa uu beeshiisa ka codsaday inay Muuse ay codka siinayaan uga soo celiyaan beerta uu 20 sano sida beelaysan uga haystay ee ay wada og yihiin gudida iyo beesha habar jeclamaanta waxaan u dirayaa beesha aan fariintan u dirayaa culamaa diinka golayaasha xiriirdiinta baarlamaanka iyo guurtida oda dhaqameedka islaadiinta iyo maxaanku dhahay ka soo jeeda Soomaaliland ka soo wada jeeda khaasatan meesha dadka uu ka soo jeedo Muuse Biixi iyo kan aan ka soo jeediyo dad kale muslimiintaaba fariinta aan u diray waxa weeye war maxaanku dhahdaa beertaas si sharci ah halaygu soo celiyo qabiil Muuse Biixi uu baawarkii Soomaaliland maanta raga ku baratabaya uu yahay waxa sharaf u ah anigana sharaf u ah inuu beertaas si gobonimo maxaanku dhahdaa igu soo isaga soo celiyo oo maxaanku dhahdaa haday xataa iibsanayaan si sharci lagu iibsado